walaalayaal waxaan doonayaa inaan u jawaabo fursaddan uga faa'iideysto madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo maalin dhaweyd aydun wada ogeydeen in uu yiri Soomaaliya waxaanu kala macaamilaynaa cid cusub oo aanu soo saari doono waa ka wada dhareegsanaydeen warkii uu ugu warramo ugu khudbadeeyay dadkiisa inay rabaan inay soo cumaamadaan qof cusub oo ay iyagu wataan oo Kenya ay mas'uul ka tahay oo iyaga u adeega oo ay meesha dhigteen waxayna ogeyn William Ruto iyo dadka la ra'yiga ahi iyo dadka fikirkiisa qaba ee dawladaha jaarka qaarkood noqon kara ama ahiba in Soomaaliya ay ka gudubtay Soomaaliduna ka gudubtay waqtigii mas'uul Soomaaliyeed wadan yeelan jiray ku shaqayn jiray fikirka dalka waxa ay marxaati ka wada ahaydeen xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeedna ay beeniyeen damicii guracanaa ee TPLF 4 sanadood ka hor waxay yiraahdeen magaaladan Muqdisho ah magaaladan Xamar ah beledkan Soomaaliya ah wuxuun baa madaxweyne ka noqon kara cidaasina mabageyda madaxweynena kama noqon karto xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo cidii ay u tirinayeen koo ka tay hormoodna ka tahay waxay yiraahdeen been baad sheegteen qof kasto Soomaali waa muwaadin Soomaaliyeed xaq baan u leeyahay inuu madaxweyne noqdo aragtidii TPLF ee qaldanaydna way beeniyeen soo maaha soo marxaati kama inaa wada ahayn soo xildhibaanada halkan jooga ma ahayn kuwii beeniyay ee yiri Soomaalinimo iyo codkayaga si xor ah inaanu u dhiibno ayaanu diyaaruna